maantay waxaan halkan u joognaa in aan kala wareegno qalab ay noogu deeqeen civil aviationka Soomaaliya ay ugu deeqday civil aviationka Qatar oo ay la soo marsiiyay ambassadorka Qatar u fadhiya Soomaaliya kadib markii ay nagu sameeyeen baaritaan iyo heerka aan marayno ayay waxay go'aansadeen in wixii naga dhinaa ay noogu deeqaan waxaa dawladda ugu horeysay bilowday waxay noqotay dawladda Qatar maanta safiirka halkan nala fadhiyo marka qalab fara badan ayayna soo gaarsiiyeen qalabkaasi wuxuu ku soo aaday xilli aad muhiim uga ah civil aviationka Soomaaliya qalabka dawladda Qatar ayna siisayna waa nagu mahad celinaynaa oo waa runtii horumarkeena ayay sii muujinaysaa waxaa kaloo xusid mudan inaan hadda ka shaqeynayno sidii aan u horumarin lahayn gobollada sidii ayagana loo qalabayn lahaa loo horumarin lahaa mashruucaasna hadda ayuu bilowday waxaan mahad gooniya u celinayaa Axmed Macalin Sheekh Jaamac waad arkaysiin hadda xaaladdeena sida ay marayso insha Allah tacaala waxaan rajaynaynaa sektarada kale ee kala duwan ee dawladdan inay sidaas si kasii wanaagsan ay noqonayaan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahad celinayaa safiirkeena dawladda walaalahana ee Qatar oo mar kasta garabkeena taagan runtii wax kastoo aan oga baahanana nagu garab taagan ayaan runtii aad ugu mahad celinaynaa